السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجنا كيني مع مشاركة وإذن لسه دواد ولا عليك قالي جميع الصدقين بس يدك جوتين حوجا أيام تان وأسكي راحة من صناعي الحمد لله هذا ما في عنا هاي مشغول يرانجلي ولا عليك قالي جاء وأتم مشغولي ما أنت إنه هاي هايا بس إذا إذا هايا وحيتها ولا عليك قالي جاء أيضا كود علي لبا قبضات أو إسرد الشيء إنه إسكوهاي baa waxay kala dhaleen wiil iyo gabar labada gabdhood isku hooyo kaliya waa isku aaba maahan wiil iyo gabar markay kala dhaleen midaan gabadhan kale waa lacag bay leedahay waa riiko midaan kale lacagta sama lahan walaaleyga qaaliga waxa joogto hooyadii iyo xoogaa yara waayeel noqotay xanuunsan waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah in la yiraahdo gabadhii anigu aan shaqeystaa usoo dir gabadhaada si ay u ogaato ayeeyadeed gabadhu waa gabdhaha 14 jirka meelahaas ay ahayd walaalahayga qaaliga waxaa dhacday in gabadhii loo soo diro ayeeyadii in badan ayeeyadii imkay la joogtay gabadhii waxaa dhacday wiilkii jaamacad buu dhigtaa hooyadiisna waa islaan ganacsataa lacag leh way maqan tahay inta badan guriga ma joogto waxaa jooga ayeeyadii iyo wiilkii gabadhaas saacadteed qaaliga waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah in uu gabadhii yarkii uu farxumeeyo xoogo gabadhii markuu xoogay gabadhii waa sheegtay waxay tiri wiilkii habareer dhalaasaan ii galo xoogay gabadhii kale waxay tiri walaalay macaantoy haddii adiga aad wiilka dhashana gabadha aan dhala dad walaalaan aana hadda gabadheedin lagu xadgudbay haddii ka waran aan isku darsano wiilkii gabadhii maanaa gabadha wiilkayga jaamiciga laguma daraayo gabadhaada mana doonayno waana beenteed wiilkayga maba u baahnaba gabadhaada camal markay iskala weynaysiisay ee aragtayna iskala weyn tahay gabadhii waxay samaysay gabadhii kale waxay samaysay saas miya haa hadda waaba diiday gabadheedu waaba been miya waxaan ay samaysay iyadaa soo abaabashimiya beentaan haa waayahay tiri way ay dacwotay dacwo kadib maxkamadda la isla koray maxkamaddii waxay tiri gabadhi hadda uuray leedahay uuray kusoo baxay gabadhii uurkan ay leedahay ninkan intaas 9 bilood ma xirnaa karo markay dhasho ayaa cunuga dhacaan laga qaadaa dhacaankaas lagu ogaanaa inuu asal dhalay in kale muddo kadib gabadhii waxay joogtaba waa ay dhashay haddii ay dhashay gabadhii wiil ay dhashay wiilkii oo asagiyo meesha taagan bay dhashay saacadteeda qaaliga waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah in maxkamadda la isugu waco oo la yiraahdo hayay soo bax gabadhii kale la soo wiilkii la keenay hadda gabadhii waa dhashay waa kaasa wiilan idii dhashay idinkana waa aadiidaneedeen dhacaankii diyaar soo noqda dhacaankii la qaadaa saacadteeda qaaliga ee dhacaankii la qaaday dhacaankii hadii la qaaday waxaa la ogaaday in oo asagii dhalay wiilkii waxaa la dhahay maadaama uu gabadha farxumay markii hore wanaag ayada watay diiday moogta iskala weynaysiis waxaa dhacday walaalay qaaliga in asagii la xukumo meeshaasna gabadhii kaleeto oo iska soo wadato wiilkii iyo gabadheedii ay soo wadato asagana markaas kadibna ay sidii gurigeedu ku keensatay wiilkii iyo gabadhii ay keensatay marka ma fiicno walaalahayga qaaliga waxyaalaha qaar waa laga iskala fiicnaada ma ahan in laba qof oo walaalaa yani midaan ayadaa diidatan kala raaliya ahayd laakiin midaana diido tiri maya maba isoo gashiin meeshaasi ku kala dhinteen labadii gabdhood oo walaalaha ahaayeen oo midba kaleeto aad u eedeysay ilaan gabadheedii laga farxumeeyey uur wicel ay yeelatay aabba lahayn markii buuqlaan tartiib inta la isugu meheriyay ay kaalis kaarig noqon lahayd dad madooba noqon lahayd laakiin midda kale way iskala weynaysay asxaabteeda qaaliga marka ma ahan in saas la yeelo walaalahayga qaaliga subxaan allah ayaantan dambe kufsigiiya waxaa noqday wax iska caadiya wallaahi mararka qaar markaa aragtid waxa la sheegayo oo aad yaabaysaa malaha adduunka gadoona soo dhawaa umaleynaaya oo ku jirnaaba ilaahay rabbi raxmaan oo qaatimada noo soo rabbi raxmaan oo walaalahayga qaaliga ilaahay rabbi raxmaan oo sharci sheedaan naga qabo ilaahay waxaan ka baryaynaa inta xun inuu ilaahay wanaaga tuso inta fiican hadda way fiican tahay haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe dheh laagna isa comment ka bixi iyo share garay walaalahayga qaaliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh